على رسول الله ثم ما بعد وسورة البقرة آية صدحية طبعا قال الله تعالى إلهي باوحل وإذا قيل لهم برك الله قول هذا قال هذا أما مرافقين مرك الله قول هذا آمنوا الرماية قالوا وحي ورميان آمنا وانو رمينا وإذا لقوا الذين عفوا وإذا لقوا الذين مركا كوي لكل مان وإذا قيل اللهم مركا لقوا هذا منافقين آمنوا الرماية كما آمن الناس سيدا أصحابته الرمايين وكلا قالوا وحي ورميان منافقين أن نؤمن ميان الرميين كما آمن السفهاء sida u rumeeyeen dadka aqliga gaaban iyo kale asxaabtay ku sheegayaan kuwa aqliga gaaban alaabu ilaahay hooya innahum iyagu munaafiqiintu hum sufahaa wa kuwa aqli gaaban iyagu baa kuwa aqli gaaban walaakin la ya'lamuuna ma garanayaan wayda laqul ladina aamanu dadka ilaahay rumeeyay markay la kulmaana qaalu waxay oranayaan munaafiqiintu aamanna ilaahay baan rumeynay oranayaan وإسكا شهادنا وإذا دخلوا وإذا خلوا مركي لقوني نغضان إلى شياطينهم منافقين تودواوين مركي إسكو قوني نغضان قالوا وحيورنا يعني إنا معكم أنكو إذن كايان وإذن وهلينينا وأنو إذن لترنا ومنافق لماذا إذن لقبنا إنما نحن مستهزئون وأنو كل ديلين كالذا sidaasay muuminiinta waan ku dheeldheelaynay munaafiqiintii buu halkan ilaahay kaga waramay subxaanahu wa tacaala iyo inay yihiin dad beenaalayaal ah munaafiq run ma leh waa nifaaq laftiisa ka soo horjeeda runta marka asxaabtu way waanin jireen sidoo rasuulkuba u waaninayay sallallahu alayhi wasallam waanadu waxay ahayd ilaahay rumeeya oo iimaan sax rumeeya marka qowlka muhiim ee qaa'ilku muhiim ah qowlkan qiimaha badan baa munaafiqiinta loo geysanayay ayaduna waxay daliil u tahay noo cadeynaysaa mar walba kelmadda xaq inay jirto oo dadka xaq loogu baaqo oo gaal iyo munaafiq midnaba aan looga habranin waayo waa amaana marka asxaabtu iyaga oo munaafiqiinta waaninaya saasay ku oran jireen aaminu كما آمن الناس كإيمان الناس ضدك سير رميان أصحاب سير رميان وكذا مرك إيمانك يسكمد معها إيمان الصحابة رضوان الله عليهم إلهي بتزكية أما أماني أصحاب إيمان كودا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الدور رميان سيدا إذن كون رميسان وكذا وهنونين وأنا ذا ويدي ذا نوحي لأن سيدا في السفهاء أنا أقول رمين مين سفهادو waxay ula jeedaan Ammar Bilal Khabbab Suhayb asxaabtii waaweynaa iimaanku qanjaha joogay ee quraan iyo xadiis ba ay amaaneen kuwaasay sufaha ku tilmaameen marka gaalku waa akbar safiih waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa diintii nabi ibraahim waxa nacay buu ilaahay qofka safiiha marka safahada iyo aqli gaabnaantu gaalnimaday ku jirtaa gaalkiina qofka muuminka abu safiih ku sheegaya isla markaa waxaad ka fahamtay beenta waxa uu heliya inay yihiin kuwo isla weyn ama waxaan ahayn soo haysta waxa kale oo ilaahay uu ku sifeeyay jahli walaakin la ya'lamuun ma garanayaan cilmi ma leh cilmigu waa laba qaybood oo cilmiga aan ilaahay ku barayn in aakhira ku barayn in xaqiiqadaada ku barayn cilmi lama yiraahdo وعلمك مادي الدنيا قال هذا إلهي وقرأ وحول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وقال كالدنيا وحويك يقانا وإنك أركينه عري يقول بوحوي كل قاتية وهم عن الآخرة هم غافلون لكن علمي آخرة لقو براني إلهي كبري ما يقانانا ووحيا ولكن لا يعلمون مركي لك كل مان هدبا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu innaa macakum qaybtaa dambena waxay tilmaamaysaa inay yihiin kuwo laba shakhsiyadood leh qofka muuminkii hal shakhsiyad buu leeyahy meel loogu soo hagaagaa buu leeyahy fi saraa'i wadaraa wakhtiga dhibkiiyo dheeftaba farxadda iyo naxdintaba meel baa loogu soo hagaagaa laakiin munaafiqu meel loogu soo hagaaga ma leh maalin walba awrkiisuu ku kacsanaya ama wixii maslaxadiisa ah ayuu isleeyahy dhinacan u dhaqaaji kii ashahatay wuu la ashahatay kii gaalooba wuu la gaaloobay waa waxa siyaasadda casriga loo yaqaano mabda joogtaa ma laha bay yidhaha siyaasaddu ee maslaxad joogtaa bay leedahay waa nifaaq qofku haddaanu mabda joogtaa lahayn dee muslim ma aha waxa aayadda ilaahay uu ku caddeeyey kolkay mu'miniinta la joogaan waa mu'min baanu nahay waa shahaadanay gaalada kolkay la joogtaan gaalaanu nahay bay leeyihiin markay la joogaan taasina waa jariimad waa dembi kalay galeen macnaha qofka waxaa la doonaya inuu ka mid noqdo min asxaabi almabaadi laa min asxaabi almasaalix qofka muuminkii waa saaxibu lmabda mabda buu leeyahy oo kaasuu ku dhimanayaa ku noolyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kaas islaamnimadaasuu ku nool yahay waana ku dhimanaya kan kalena waxa weeyaan maxaan wax ku helaa xaggee wax laga cunaya xaggee kursi laga helaya xaggee magac laga helaya saasuu socdaa ayaddu waxay caddaysay dadka qaarkood oo insiga ka mid ah isagoo ifka jooga in shaydaan lagu sheegi karo waidaa khalow ilaa shayaaiinihim shaydaan waxaa la yidhaahdaa almarada qofka maaridka ee madaxa adag jin iyo insiba ayaa la yidhaahdaa shaydaan marka insiga qayb ka midabaa dadka mufsidiinta ee dhulbiiska ee gaalada waa shayaaiin bale waa shayطana fulaan wuu sharbatay wuu madax adkaaday xaqii buu diiday shayaaiin alinsi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura suurat lancaam jin iyo insi baa shayaadiintoodii isu waaxyoonaysa wax kastoo madax adkaadaana waa sidaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi alkalbu اlaswadu shayطaan ayga midoobay isagaaba shayطaana waa wax baasoo madax adagoo laga naxoo dhib badan inamaa naxnu mustahzi'uun gaaladiinaanu la jirnaa laakiin muslimka waxaanu ula ashahaadanay waanu ku dheeldheelayn dheeldheel bay naga ahayde dhab nagamay ahayn inay moodaan inaanu la jirno oo isku kaaya haleeyaan oo waxna siiyaan ujeeddadu intaasay ahayd allaahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya wayamuduhum wuxuu u kordhinayaa fii duqyaanihim baadidooda yacmahuuna iyaga oo ku wareersan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye ishtaraw dalaala baadi bay ku iibsadeen bilhudaa hanuun famaa rabixat tijaaratuhum baac mushtarigoodaasi ama ganacsigoodaasi muu ribxin macnaa ma faa'iidin wamaa kaanuu muhtadiin manay hanuunin istihzaagoodu waa mid bilaa macnaa waa mid xadguduba waa mid xaq darro ah istihzaaga ilaahayna waa mid xaq marka sifaadka aayaadka ku soo aroora ama axaadiidta rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka mar hadduu ilaahay isu sugay waa in loo daayo laba qaybood baanay u qaybsan yihiinoo sifaad sidoodaba kamaalu leh oo mar walba aan wax nuqsaana lahayn sida alraxmaan alraxiim algafuur sidoodaasee ilaahay magac iyo sifo ugu yihi sifaadka qaarkoodna qaydka marka dabar loo sameeyo ee wax lagu qaydo ama wax loo idaafeeyo ayay leeyihiin ammaanta waana siduu qur-aanku u isticmaalo iyagoo qaydan ama dabran buu isticmaalaa haddii laakiin gooni loo saaro dhaliil bay yeelanayaan taasina sax ma aha oo dee siduu qur-aanku u daayin waa in loo daaya almakru waalkhidaacu waalkaydu waalistihzaa waa ereyadaas weeye innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan sida halkan oo kale allahu yastahzi'u bihim wayamkuruuna wayamkuru allah marka sidoodaa loo daynaya laakiin qeydkaasaa la socda oo lama odhanayo allahu mustahzi'un wa mukhaadicun wa maakirun ereygiio saa u mutaxan oo aan dabranayn lama isticmaalayo laakiin waxaa loo isticmaalayaa khaadicuhum mustahzi'uhum wa yakiiduhum saasaa loo isticmaalaya idaafadaas iyaday la socoto idan markaa ammaan wey
marka istihzaaga ilaahay ama hadduu ku dheeldheelay waxa weeye mid ay xaq u leeyihiin oo aan koodii xaqirna ahayn ka ilaahay macnaha wuxuu kugu adkaan doonaa erey ama dadka qaarkood oo shabaha ugu adkaadaa sifadan ilaahay bay u qaadanayaan sifadii makhluuqa inay la mid markaa dee wuu kugu adkaanaya laakiin markaad aaminsan tahay aad u qabto wuxuu ilaahay isku sifeeyey inaanu la mid ahayn waxa makhluuqa ee uu ka duwan yahay oo uu isaga u qalmo dee kugu dhib badan mayso laysa kamithlihi shay'un wahuwa asamiicu albasiir sida samci iyo basar uu isugu sugay uu inagaga duwan yahay sidaasunba istihzahooda iyo istihzaha ilaahayna u kala duwan yihin marka xabad jiijiidin bayna duwina mayna allahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya mid iyaga u qalma tusaala ibn cabaas baa bixinaya radia allahu canhu allahu yaskharu bihim buu leeyahy ilaahay baa ku dheeldheelaya wa xabru lumma caalimkii ummadda mufasiru lqur'aan saasuu ku fasiraya marka uu sii fasiraa wuxuu yihi aakhiro maalan marka nimankaasi ay yimaadaan munaafiqiintu ee muuminiintu ay jannada galaan albaabadii jannada loo furaya way sii guclaynayaanoo way ordayaana markay albaabka marayaan qam ayaa laga xidhaya waa istihzaagii weeye way lu go-een halkaasi adhaxda kaga jabeen suurat lxadiid haddaad akhrido waxa ay tilmaamaysa suuradda aayaad ku sugan ay xusayaan dadkii muuminiinta ayoo socda oo iftiinkii iyo nuurkoodii wata yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum اlyowma jannaat munaafiqiintii markaa adduunkii hebeladan yaqaanee la saaxiibka ah ee tolka ahaayeen ayaa is odhanaya bal dadkan siraatay ee sii iftiimaya idinkuna dabagala way daba dhiganayaan kolkaasaa ilaahay uhi faduriba baynahum bisuur lahu baabun baatinuhu fiihi الraxma wa ظaahiruhu min qibalihi اlcadaab yunaaduunahum alam nakun macakum waar dee sawtaynu ifkii tolka ahay inaynu wada joognay maxaa laydhka nooga baktiiseenay albaabka nalagu gudbay markaasaa maxaa la leeyahay qaaluu balaa walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagaradkum اlamaani ilaa aakhir اlaayaat marka iyagoo soo bidhaansanaya oo leh nuurkaa wax idinka qaadaneenna suga ayaa lagu xidhayaa waa istihzaaga ay ka mid tahay tusaalayaal badan baa jira marka ilaahay markii ay xumaanta doorteen buu xumaantoodii usii badiyey duqyaankoodii waa yamuduhum fii duqyaanihim yacmahuun hunaaka farqu bayna alcamaa waalcamah camah waa wareerka dawakhaadda uu qofku dawa ku jiha yeelan waayo alcamaa waa indhala-aanta indhala-aanta wey si kale haddii loo dhigo indhala-aanta qalbiga ayaa la yidhaahdaa alcamah yacmahuun waa sida halkan oo kale indhala-aanta indhahani ay wax kaa noqdaanna yusama alcamaa oo waa ism maqsuur ahoo alifkaasi uu ku taagan yahay idan markaa nimankani qalbigay ka indhalaayihin munaafiq qalbigu ka indhalaayahay marka qofka qalbiga ka indhala wareer baa ku dhaca jiha ma laha sida qofka indhahan beelaaba uu u dawaku dhan u socdo u garan waayo marka hamoodin yacmahuuna ha ku fasirin way indhalaayihin laakiin waxaad ku fasiraysaa way wareersan yihiin iyadoo indhala-aantii qalbigaba kollayba ay tahy waxa aayadda ku xigtaana ay tilmaantay ulaa'ika aladiina ishtarau dalaalata bilhudaa famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waxay xusaysaa aayaddaasina in ifkan dadku intay joogaan kollay ganacsi bay ku jiraan qofku waxna wuu iibinayaa oo wuu sii bixinayaa waxna wuu soo qaadanayaa dadkii baa kala duwanoo kuu ilaahay hanuuniyey wuxuu iibinayaa wax qaaliya wax ka sii qaalisanna wuu soo qaadanayaa naftiisuu iibinayaa maalkiisuu iibinayaa wakhtigiisuu iibinayaa cilmigiisuu iibinayaa ilaahii siiyey buu ka iibinaya ayuu ka iibinayaa wax ka qaalisan oo dembi dhaaf iyo janno ana wuu ku soo qaadanayaa iyo hanuuna ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljanna yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calىa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim aayaadka si akhri suuratu saf kan kale laakiin iimaan laawaha ah iibkiisu waa maxay hanuunkiibuu ka baxay oo hallow buu soo qaatay oo iimaankiibuu ka tegey oo gaalnimuu qaatay oo akhlaaq xumuu qaatay waa kaa ilaahay tilmaamay ulaa'ika aladiina ishtarau dalaalata bilhudaa ba'du waa tarkiya ishtarau bimacnaa istabdaluu
الضلالة بالهدى بترك الهدى hanuunkiina halkaasay ku tuureen baadina way iibinayaan waxa adduunyada maanta lala guclaynayo ee dawladda la guclaynaya ee hay'adaha la guclaynaya ee uu gaal wado waa intaas alaabtan xuniga iibso alaabta qaaliga tuura ilaahay ka taga oo rasuul ka taga oo diintiisa tuura oo dhaqan xumada iyo qaawanaanta iyo akhlaaq xumada qaata waxa macaan baa lagu saliday diidaya waxa xunna way bedel qaadanayaan maxaa natiijadii noqotay famaa rabixa tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waa khasaare iyo hallow marka dib u eegto 10 tilmaamood bay aayadaha aynu soo dhaafay munaafiqiinta u sheegeen oo ilaahay uu ku sifeeyey 10 kaasoo la inoogu sheegaya inaynu ka firdhanaynu ka fogaano waa alkadib beenti alkhidaac khiyaamo alifsaad dhulbiisnimo العجب اسقنعين يا إسلوينان الضلال وهلو يبادي عدم قبول الموعظة يقول وانا ذا أقبل التذبذب يقول قال يا إسلام الدحية وكل بدن عررية الاستهزاء يقول كل الليلة يحقي أهل كيس السفه عقل قابنا طبعا كاسائل هاي وكت المابا نتيجة ذا يدحلنا وامح الخسارة والضلال والحيرة والخوف خسارة هيكون خسارة وحي أي قناعس قلال يو بادي يو ورير يو عبس الكوين أرقنا خسارة هذه آيات نودن بيسا شكت هل لو قنا آيات نودن بيسي آيات هربوا الشكت في ضغيانهم يعمهون وما كانوا مهتدين وهلوا حيرة يو ورير كان حيران لماذا نوح الشيء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خوفك يا عبسيدنا وحا شيغيا تصالها كسيخيغا او كصيب من السماء marka afarta natiijo ama afarta jawaabood bay heleen markay 10 talaabo xun qaadeen marka dadow iska ilaaliya cudurrada noocaas ah arax jabka iyo aakhira seega iyo alla seega sa lagala kulma iska ilaaliya waa digniin quraanku bixinaya marka halkaa waxa kaaga muuday inay mudan tahay cudurka in la iska ilaaliyo la yiraahdo nifaaq in waajib ah tusaalo hadaba ilaahay bixiyo wuxuu mathaluhum munaafiqiinta tilmaantoodu ka mathali alladhi qofkii oo kale weey ama jamci oo kale ama kooxdii oo kale alladhi kooxdaas oo istawqada naara dab shiday falama adaat ma hawlahu markii uu dabkii iftiimiyay ma hawlahu جمعا وحي هريره سأها ذهب الله بنورهم إلها افتين كيبو كقاضي افتين كودي بو كقاضي نور كودي وتركهم وحكقتك في ظلمات مدويال قدع ريال لا يبصرون يقوم حباركين صم وانمن أفلاء صم وانمن دقلاء بكم وأفلائهين عمي وإندلائهين فهم لا يرجعون ما soo noqonayaan iyagu marka waxa weeyaan qof aan dhigana xaq u lahayn kuna dhawaaqi karayn arkina karayn natiijadiisu waxay noqotay inaanu soo noqonayno rajo lahayn marka laba tusaale ayaa ilaahay halkan ku bixinaya munaafiqiintu ay leeyihiin labadaba aad ku shabihi karto ama kolba mid aad ku shabihi karto ama iyaga kooxahooda aad oran karto kooxdaasina tusaalahaasay leeyihiin kooxdaasina tusaalahaasay leeyihiin مثل كان صهر يا وحوي منافق وحول لم يدي هاي بقى إلهاوي ضد مال فريس طب كي مركو هريره دي ويفتيمية أي كم مفسودين هبينك أيوم الدم إلى هاي كبختي في ظلمات لا يبصرون مركو عاد كسر قاعد ومال قرفاء شوقة خوابنا شراء ضرورنا عرك كل شغليهين افتين كانوا باهن وإفتينك يكوب حيو دم ماشي يتلاعض صدح كل عربة سمية كل عركيها بيني ماذا أما ماذا وجيها بيني ماذا هي ماذا وجي ضرورها هي ماذا وجي ولها كم مذوبين تلقوا مذوبين هذا واضح في قفكو ده هدول بادية شو جاوا قرن كره هدي مكاد ماذا ويسكت حجوك تمر كاجه هراء إفتين يضرب أنا درك وحن بكوير بريقية حن بعد يا رب العالمين يسا يرم ماذا وارك كريس إفتينا يرير وادلودي كريس لكن هدي يضاء إفتين وين كوب بحي الدم لقاعد فرت هذا الماركز
سورة واحد كآخر ذا النور هدوق عنتي سفدية قفكم ما أركي حتى صدح راساك الموى كايل هاي في ظلمات لا يبصرون مركا منافقين واساسو كلا وحوية مركي هرو أشهاتي ده افتين باو بحي افتين كاي سقو هايستا أيو قالوا بي نيشي با كم مدوغاتي مركا قال لي مدوغا سيلا هذا إيمانكنا افتين كاسولي فرق قاساو دحي وتسأل عتيبة هدي أدو سي فيرسطو فرق باو دحي هناك فرق بين النور والضياء نورك اللي بدأ يرى عربية هي الضياء ضياء وحوي افتين كآت كوبضان نور كنا وحوي مذير يمذ وين بوياشا مركا إلهي حق وروح سويد فلما أضاءت عندنا وحول ذهب الله بنورهم مو أرن ذهب الله بضوئهم هدو أرن لها ضوء أودي ولتك افتينكي وحسورة قال نقول لها افتينكي بدنابا لقلتك لكن إنه ربا وهدي مركا لكن هل كان معنوه ويهي نور كيبو إلهي كقاضي وحبابا وما هري ويهي ماشوي مدودة وهي الضوء كبضنا نورك واللطيفة ترتوي لطيفة اللباد أما فإذا ذاك لو حوي نور إيا النار باكرة مركي ورا استوقد النار به ذهب الله بالنارهم وأرنين مركي دنبنا محو يدي بنورهم فرق كتير وحوي النار نور نوي لا هاي كليل نوي لا مركي هورا دبي شتان دب كاس افتين نولها كليل نولها marka kulaylkii waa loo reebo iftiinkii baa laga qaaday macnaha uu tusinaya dhahab allah binaarihim aanu oranina binuurihim yiri naartu faa'iidada ilahayd oo nuurka baa laga qaaday laakiin kulaylka ilahayd waa loo reebay arinta mulaaxadada kale waxa weeye ama arinta kale aynu fiirinayna nuur iyo dhulumaat quraanku markuu xaq iyo iimaanka ka warramayo wuxuu yiraahdaa maxay nuur gaalnimada markuu ka warramayana dhulumaat sidaasay to xaq waa mid kaliya faraarama leh manafil qara dadka xaq doonayana way midaysan waxa la yiraahdo baadiduna waa ku nooc ayay ka dhigantay gaalnimadu waa imisa nooc arinta kalena way ku jirtaa sababta nuurkana mid qura looga dhigay dulumaadkana wax fara badan looga dhigay وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء أما بعد وسورة البقرة يا آياته منافقين تكور رميي آيات السقالية طبعا قال الله تعالى أو كصيب مثلهم تساله وحو كدغاي منافقين كمثل الذي تساله اوكله كي اوكله الى مدي وين صارغنا او كصيب من امر روب اوكله معناها كاصحاب صيب مضاف بالو سو قدريه كاصحاب صيب واحد منافقين توغيسين كرتاد كشبيه كرتا قول روب دايو من السماء حق كرو روب كسو دايا فيه ظلمات ورعد وبرق روب وحا كدخ جرو وتا كدعريال iyo racdiyo ah maxay onkod iyo barqiyo hilaaca yajcaluuna asaabicahum farahooda waxay gelinayaan oo looga jeedo xubnaha waxay gelinayaan dadka roobku u daaya fi aadanihim dhagahooda saafarta u gelinayaan min as-sawaa'iq danabka ama hanqarka dhacaya daraadi giridaaya ka daraadi be faraha dhagaha u gelinayaan حذر الموت يجوا كوعب سنة دمشق وإسلام نبه ضنب كاسيد دلاه والله محيط إلى هاي وكوبي الكافرين قال بالكافرين قال هذا والله محيط بالكافرين قال هذا إلى هاي أول بابو كمرة هذا وها إسلام يجوا هنا يدين كوبين استجا كوبي يكاد البرق هلاعا ولا لعرها هي يكاد وحود وانا يهلاعاس البرق يخطف أبصارهم إنه إنه دفتوا قاضبا كلما أضاء لهم
markasta oo hilaacaasi dhulka uu iftiimiyo mashaw fiihi dhexdiisay soconayaanoo way tallaabsanayaan waidaa adlama calayhim markuu ku madoobaado ee uu hilaacaasi dhaafo qaamuu way istaagayaan ilaa meel u dhaqaaqaan ma jirto walow shaa allahu hadduu ilaahay doonayo ladahaba wuxuu la tegi lahaa uu ka qaadi lahaa bisamcihim maqalkoodana caadiga ah wa absaarihim iyo araggooda aragyaashooda ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba isaga ayaa kara oo aan waxba ku adkaanaynin rabbi subxaanahu wa tacaala tusaalaha hore waynu soo aragnay kanna waa tusaalihii labaad marka ereygaas aw ah culimada waxay dhaha waa maanicatu alkhuluw laa maanicatu ljamci oo macnihiisu yahay ereygu wuxuunu diidayaa uun inay labada tusaaleba meesha ka wada baxaan laakiin ma diidayo inaad labada tusaaleba wada siiso munaafiqiinta labada tusaale waad wada siin kartaa waxaad odhan kartaa munaafiqiintu tusaalahana way leeyihin hore tusaalahana way leeyihin oo labada tusaaleba ay ka horena uu bixinayo wareer kan dambena uu bixinayo cabsi labadaa tusaaleba way leeyihin labada tusaale un baan ka wada bixi karaynin meesha maanicatu ljamci ma ahe waa maanicatu lkhuluwi meeshii baanay ka wada bixi karayn labadaa tusaale waxaa markaas mudan inaynu wax ka xusno tusaalayaasha qur-aanka dhexdiisa qur-aanku tusaalayaal badan buu bixiyaa axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyaguna tusaale ayay dadka siiyaan markaa tusaaluhu faa'iidooyin badan buu leeyahy faa'iidooyinkaa waxaa ka mida wacdi markuu ilaahay dadka wacdiyayo tusaalu siiyaa waxaa ka mida alxahu wazajru dadka marka wax lagu dhiirinayo ama wax loo diidayo tusaalaa la siiyaa waxaa ka mid ah alictibaar tusaalahaasaa jira ku cibro qaado waxaa ka mid ah taqriibu lmuraad lilcaql wixii la doonayo oo caqliga loo soo dhoweeyo maalan shaygii lagaaga warramayey marka sawir lagaaga siiyo wax lagu idhaahdo waxaa laguu sheegayaa kanuu la mid yaho kanuu la mid yaho kaasuu la mid yahay waxaad arki karayso waxa weeye waad ku qancaysa maalan qur-aanku jannada ayuu aada uga warramaa dee waxaanaynu adduunka ku haynuu tusaale inooga dhigaa tusaalayaashu waa kuwa ilaahay wuxuu uhi watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaasha san qur-aanka dhexdiisa samaynaya aan idin yeelayaa dad caqliluun baa ilaahay ka qaatoo fahma kii kale war caadiya ayuu qaadanaya watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun inay dadku fikiraan ay fahmaan tusaalayaasha ilaahay uu siinayaa mudan faa'iidooyinka tusaalayaasha waa kuwaas sidaasaana ilaahay uu noogu dhiiriyey faa'iidooyinka waxaa ka mid a iimaanka qur-aanku mar uu ku bayaamiyaa sidan aynu arkayno waa tusaalihii iimaanka iyo tusaalihii gaalnimada fadeexaddii munaafiq khayrkii dadka la isugu yeedhayo gaalka iyo muslimkaoo laba tusaale loo kala bixiyo haddaynu eegno tusaalayaasha qur-aanka halkaa iminka laga bilaabo ilaa suuratu taxriim 21 maal ama koob iyo afartan baan leeyahay 41 tusaale ayaa isdaba yaala oo ilaahay dadka wax ugu iftiiminayo oo wuxuu u sheegayo ugu soo dhaweynayo 41 ka tusaale waa 21 suuradood min suurati al-baqara ila suurati at-tahrim marka meesha suurada ugu tusaalayaal badanina waa suuradan imika aynu marayno ee suuratu al-baqara 9 tusaale ku jira waxaan jecelahay waqti kooban si aad sawir fiican uga hesho inaan yar dul marno tusaalayaashaas halkan ilaahay laba tusaalo bixiye mathaluhum kamathali alladhi istawqada naara aw kasayyibin min as-samaa an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثله كمثل صفوان ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
أيود أحدكم أن تكون له جنة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكنتم على شفا حفرة من النار. آيات آل عمران يكبل آمنس. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، وآل عمران سورة الأنعام بعد قاعدة كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، سورة الأعراف. مثله كمثل الكلب، سورة يونس. إنما مثل الحياة الدنيا كماء، سورة هود. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، سورة الرعد. إلا كباسط كفيه إلى الماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سورة إبراهيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. ساسادو سيودا سادو مركا كلنا وحب بلاد ميسا وضرب الله مثلا قرية وضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فكأنما خر من السماء ضرب مثل فاستمعوا له مثل نوره كمشكاة. ساسو بعض وضيس marka intaasoo dhan wuxuu inaga jeednaa marka aad aayaad ka marayso in aad fahamto xigmadda looga jeedo iyo waxyaabii laga qaadan jiray amthaash oo dadka adiga jeer markuu quraanku u waramayo de shay waxa uu sheegay aqligooda ay ku fahmayaan, laakiin markuu tusaalahan siiyana ishii bay ku sii fahmayaan. taas inta marka aynu kaga gudubno labadan tusaale ee imika aynu soo aragnay midna dabka ilaahay uu ku shabahay midna roobka. ka hore waynu soo aragnayoo waxa iftiinka keenaya wuxuu iimaankii markii hore ay galeen, waxa madowga ku keenayna wuxuu gaalnimada u baxeen. kan dambe wuxuu ilaahay sheegay roob iyo madow uu leeyahay, madowye uu leeyahay iyo onkod iyo hilaac iyo bahalkan hanqarka la yidhaah iyo danab, labadaba waa loo yaqaanaa. dee kaharabaaga watee meelaha ku dhaco gubaba. marka la eego nimankan munaafiqiinta xaaladooda tala madarkaa waxaa la mida qur-aankii oo dee siduu roobku u nooleeyo dhulka ayuu qur-aankuna quluubta u nooleeyaa ama islaamkuba. qur-aankii iyagu mararka qaarkood waa kuwa wax ka sheego shubuhaad iyo madmadow ay ku furaan, waa dulumaadka. shubuhaad iyo madmadow male qur-aanku, laakiin iyagaa si ay dadka uga firdhiyaan shubuhaad iyo madmadow ku fura, waa dulumaadka. qur-aanku wuxuu leeyahay wacdi iyo waciid. wacdigu waxa weeye bushaaro iyo badhaare dadka uu u yabohayo wanaagsan. taasina waxa weeyaan maxay? waa barqiga iyo hilaaca. qur-aanku wuxuu leeyahay waciid iyo hanjabaad iyo huruuf loo ballan qaadayo iyo halaag loo ballan qaadayo nimanka munaafiqiinta iyo gaalada. kaasina waxa weeye maxay? waa sawaaciq, danabkaa weeye. marka munaafiqii kolkuu qur-aanku wacdi iyo wanaag sheegaya wuxuu salan wallahi adna waad shahaadato waad ku jirtaa, waa adigan muslimkii dhex socda ayuu odhanayaa. marka waciidkaasi uu yimaadee munaafiqiinta la fadeexadeeyo intaasoo aayadoodoo tilmaamahooda dhigdhigaya ay soo degaan sida suuratu tawba oo kale iyo halkan aynu ka maraynay suuraddan, markaana wuu naxayaa sida uu naxo qofka had iyo jeer danabka iyo hanqarkaasi uu ku soconayo. marka waxay isku dayayaan waciidka iyo fadeexadda munaafiqiinta ay socoto aayaadku ka warramayaan inay u dhagooleeyaan. suuratu التوبة آخر كذا واحد أركيس يجوا حضرتي النبي عم مجلس كي النبي فرديا عليه الصلاة والسلام والنبي عم يلا فرديا أيام مركو القرآن كل ما ذا وحرنش ماذا قال آنفا وتقول له ويد محو آخرية حتى ما شوي شو جنبه مركا تاسوا ودقولين أنت أي صواعق ذا يضنب كقرآنك أي يسكر دقترا يعني مركا وحيوي قانا علماء البلاغة
التشبيه التمثيلي بالله تشبيه التمثيلي marka nimankan xaalad ay leeyihiin iyo xaaladaas la isku shabahay roobka iyo inta uu wato waxa la mid ah quraanka iyo inta uu wato marka natiijada ka soo baxdayna waxa weeye quraanka kariimka ah iyo khayrka uu leeyahay kama faa'iideysanaya munaafiqiin laakiin halaagaas uu kala kulmaya aw ka sayibin min as-samaa'i waxaad ku shabihi karaysaa roob xagga sare biyo xagga sare ka soo daaya sama waxa la yiraahdo wixii ka sareeyo fiihi dhulumaatun wa ra'dun wa barqun roobkuna gudcuriyaal buu wataa iyo onkod iyo hilaac yajcaluuna asaabi'ahum fi aadaani farahooday dhagaha gelinayaan kale waa intan u horeysay xubnaha yar yar min as-sawaa'iq hadar al-maut tanabka iyo hanqarka dhacaya daraadiyo geerida ka cabsanaya wallahu muhiidun bil kaafiriin ilaahay gaaladu koobay bushaarada qaata way dad badan baa gaalku wax weyn u leeyahay aad uga cabsada marka wallahu min waraahi muhiit ilaahayna gabigoodaba uu koobay marka haduu ilaahay qalbigaaga ku weeyay gaalku qalbigaaga ku weynaan maayo ilaahay baa dhan walba ka koobay isaga uu magan gal gaalkaad ilaahay ka magan galaysa oo shaydaankaad ka magan galaysa oo sharwadeenkaad ka magan galaysa ilaahayna waa kugu filan wallahu ghalibun ala amri hilaaca isaga ah yakadul barqu yakhdafu absaarahum kullama adaa ma lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qam hilaacaas wuxuu dhawaanaya inuu indhaha qaado inaad u fiirsatay mooyaane marka hilaac wala la idhaahdo adigoo madow ku jiray muddaanad waxba sii arkaynin waa indhuhu ku waxaysbayaan oo shucaac ka duulaya sidaas oo kale weeyaan oo quraanka kariimka ina dibkaas ku haya munaafiqiinta aad bay uga naxayaan markuu hilaacaasi baxo way yara dhax soconaya marka muslimka loo bushaareeyo waxay soranayaan mala waa ku jirtaan idinkuna way ku yar bushaareysanayaan marka la kala saaro muslim iyo munaafiqna ee quraanku kala saarana waa idha adlama alayhim qam markaasay quusanayaan labada xaaladood baa la isku shabahay ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الهي ودي سوي بدن منافقنا isaga un baa ka dambeeya haduu doonayo indhahan ay wax ku arkayaan iyo maqalkaba uu ka qaadi lahaa uu dhaga tiri lahaa oo uu indha tiri lahaa haduu doonayo qayb kale inuu sii gudubnay munaafiqiintii tilmaamoodi 13 ka aayadood bay ku dhamaadeen wixii ay sameeyeen ma fa'alu wa ma fu'ilu waxay falaaniyo wixii lagu falay soo aragti iyaaka wa nifaaq marka waxa cudurka la yiraahdo nifaaq iska ilaaliyo ka feejignow ya ayuha an-nas billahi lidada ubudu rabbakum ilahi na'budu alladhi khalaqakum ilahi din aburay walladhina min qablikum ummadihi ka horeeyayna aburay la'allakum tattaqun waxa u dhowdiin in ilaahay ka cabsataan subhanahu wa ta'ala alladhi ilahi aabuda ja'ala lakum al-ardha dulka idin ka dhigay firaashan gogol was-samaa samadii sareysayna wuxuu ka dhigay binaa mid dhisan wa anzala min as-samaa'i maa'a xagga korana ilaahay biyo ka soo dajiyay subhanahu fa akhraja bihi wuxuu ku soo saaray xagga sare uu ka soo dajiyay من الثمرات من أردن رزقا لكم يضع يدين تهاي محي أرساقدي وحد يفسطان وعنطان مرها سأرساقدي دينا فلا تجعلوا لله أنداد إلهي هوية لنا إلهيال يا وحيابا لا عابدان وأنتم تعلمون إذن كوغرنا يا إنان إلهي عدنا وهلنين عدنا وحلا يالان كريم باغبا كدعي yeedmadaasi ilaahay wuxuu u yeedhayaa waa khalqi qodan qaal iyo islaam iyo wuxuu abuuray ya ayuha an-nas jinkiina waa soo galaya yeedmada inka soo dadun lagu tilmaamo amarku ilaahay siiye waxa weeye ilaahay nacaabuda marka insaankii waxa loo abuuray cibaadada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jiniyeen sumaan abuurin buu ilaahay wax kale inay caabudaan mooyaan marka dadka hadiya jeer ilaahay caabudaa waxay garteen sirtii nolosha dadkaan ilaahay caabudin ma bay garanba waxay u noolyiin
rabbakum rabbinimada ilaahay uu noo idaafeeyay idaafadaas waxay tilmaamaysaa inuu xaq u yeeshay cibaado waa kii ku abuuray iskamaad abuurmin hooyada ay aabahana kuma abuurin ilaahay baa ku abuuray subxaanahu wa tacaala am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu الsamaawaati wاlard bal laa yuuqinuun wasaddex mid un bay noqon lahay inaad is abuurtay iyo in cid kale ku abuurtay iyo inaad ilaahay ku abuuray iyo inaad iska abuurantay waa afartaa midun saddex ma jiraan cid kale hor ilaahay ahaynoo ku sheegan karta ama odhan karta anigaa dadka abuura ma jirto namruud baa isqaadqaado o yihi qoraxdaasaan ka taliya in yarbu kusoo fashilma marka cidda maanta tidhaahda warshadaydaa dad soo saartaa dee horeyba ka fashilmaysa qof odhan karaya anaa wax abuurayna ma jiro ka yidhi waan iska abuurmaynaa alcadamu laa yuujid waxba la-aani waxba ma keento saddexdaa kale markay hadheen waxaa soo hadhay inuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala jubayr bnu mudcim aayaadka aynu akhriyayna suuratu duur ku sugane arrimaha isbarbar dhigaya qofka caqligiisa qancinaya oo aayadahay qanciyey buu le soo jiitay sabab ahaa inaan islaamno rabbakum haddii cibaado un cidaada caabudaysa rabbigiina caabuda aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun idinkiiyo dadkii idinka horreeyeyba ilaahay baa abuuray marka rubuubiyada ilaahay waa inay raacdaa uluuhiyada ilaahay oo aan la kala reebin oo aan la odhan rabbi oo adaana abuuray laakiin cid kale aanu caabudayna ma qabata ilaahay subxaana wa tacaala labadaasu israaciya aayadda u fiirso mar haddaad ogosho inuu ku abuuray cid kale ha caabuday cibaadadu amarada iyo midhaha ilaada waxaa ka mid a lacalakum tattaquun inaad cabsataan cibaado taqwo laga waayo dee cibaado ma aha haddaanay cibaadadaadu wax taqwo lahayn cibaado noqon mayso waxaa jira muqaabalo cajiiba ayaa halkan ka muuqanaysa oo ah firaasha alarda aلsamaa firaashan binaaan waa fasaxadda iyo balaaqadu leeyahy qur-aanku waa eraye iska hor jeeda oo si cajiiba isu qaabilsan awoodaha ilaahay kugu abaabulaya inaad keligii rumayso waxaa ka mida cirkiibuu ka soo dejiyey xaggiisala biyo wuxuu ku soo saaray maxay midho aynu cunayno adigu ismaad abuurin tan labaadna waxay kuu sheegaysaa arsaaqadaadana maad abuurin oo ma haysi maxaad meel kale ugu kici markaa ilaahay intuu ku abuuray ku maamulaya haddana waxaad afka ku guraysana isagu ku siiyey falyandur ilinsaanu ilaa طacaami annaa sababna almaaa saba ilaa aakhir alaayaat bal qofka bani aadamkii wuxuu ku nooliyun ha eego iyo cidda samaysay iyo noocyadu leeyahy falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuuna waxay kuu tilmaamaysaa ilaahay sanamyaal iyo waxaa la caabudaan ha u yeelina idinkoo garanayo arkayo ogsoon inuu keligii yahay dee ma qabata ilaahay inaad la caabuddo midaan waxba abuurin oo aan ku arsaaqayn ilaahaan labadaa abuurna haynin arsaaqadna hayn arrinkiisu waa maxay ilaahnimadiisu waa midaan jirin saasuu qur'aanka kariimkaa ilaahay dadka ugu qancinaya subxaanahu wa tacaala وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما أما بعد وسورة البقرة هي تفسير كيدي آيات صدحية لباطن قال الله تعالى إلهي بأوحل سبحانه وتعالى وإن كنتم هدياتهن ضديه في ريب هدا شكي كسغنتهن مما قرآنك أما وحيك نزلنا على عبدنا أدون كيغا أن كسود جنون نبي محمد فأتوا وحا كانتان بصورة صورة كان من مثله قرآن كلامه أما من مثله نبي وكلا نبي مثل مذا كان وادعوا شهداءكم وادعوا وحاو يارتان شهداءكم قوب جوغياشين شهداء مرخاتنا وين نغضان هل كان لكن كوا أعوانتها إذن ساعدية إذن كساعد لها قرآن سمينت هذه قرآن سمينت عد إذن كساعده ليسان أو يارد من دون الله كوا صان إلهي انت كسو كيسا
sheeganaysaan in kuntum saadiqiina haddii aruntiin kuwa run sheegaya fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa samaynin oo qur-aan keeni kari weydaan walan tafcaluu samayna kari maysaan weligiin fattaqu naarun ka cabsada oo iska ilaaliya allatii naartaasoo waquuduhaa waxa lagu hurinayo ee lagu shidaya annaasu dad uu yahay walxijaaratu iyo dhagaxaan uciddat waxa loo diyaariyo loo meel dhigay lilkaafiriina gaalada sidaasay tahayoo ilaahay xaqiisa iyo cibaadadiisa waxaa ka mida waxyigan oo laga guddoonto hadiyadii iyo hibadii weynayd buu keeno qur-aanka deeqdii weynayd wey waa kalaamkiisii wey marka kalaamkiisaasuu ilaahay ina faray si uu inoo hago oo inoo saxo waynu u baahanoo kama maarmi karnee inaynu ku dhaqannaynu ilaahay ka qaadanno subxaana wa tacaala cidda ka shakisa buu markaa ilaahay dood u soo dhigay oo ula dooday ama qancinaya ama taxaddi car weeye taxadigu car waxaa keen markaa ilaahay iyagii buu la hadlay gaaladii iyo mulxidiintii iyo mushrikiintii isku wada dar mid ilaahay ma jira buuhi midina qur-aanku ma jira buuhi midina ma keenin midina ma karo haddaa ka shakisan tihiin qur-aankan aanu ku soo dejinnay addoonkayaga oo leedihiin isagaa samaystay bal idinkuba keena haddii lagu idhaahdo waxaa iyo waxaa bal carkeen taxaddi baa loo yaqaana af carabiga waa dhaabad waxaasaan ku hordhigay car dhaqaaji oo dhan isaga riixi marka icjaaz iyo taxaddi waa mucjis qur-aanku waa mid ku daalinayo macnaha aanad keeni karayn waa mid sidoo kale taxaddi kugu ahoo ku hor taagan inaad isagoo kale keento marka icjaazka qur-aanka kariimka icjaazkiisu intaynaan horta halkaas dhaafin mowduucii cibaadada ayaynu wax yar ku noqon lahayn cibaadadu waxay leedahay midho ayay leedahay midho cibaadadii noocyadeedii kala duwanaa waxyiga raacidiisu ay ka mid ahay waxay leedahay midho aynu ka goosanayno midhahaasoo runtii innaguba aynu u baahannahay intaan midhaha la gaadhin iyo dheefta inoo leedahay waa xaqii ilaahay oo aynu fulinay subxaana wa tacala cibaadadu saddex bay ka koobantay inaad ilaahay xaqiisa siiso naftaadana xaqeeda siiso ummaddana xaqeeda siiso qof kastoo bani aadamkan jooga xuquuq baa laga doonaya iska soco oo iska cun oo iska dhaqaaji maaha laakiin qofku wuxuu u abuuran yahay liyuxiqa alxuquuq xuquuqda laga sugaya inuu xaqiijiyo si isaguna xaqiisa u helo xuquuqdana waxa u horeeya ka ilaahay oo xaq walba ka horeeya naftaadiiba xaq la siiyey oo iyaba waa ammaano cid walibana xaq bay leedahay xataa alxayawaan baa xaq kugu leh marka xaqii ilaahay ood fulinayso way cibaadadu sideedaanay u tahay gaaya ujeeddo la raadinayo oo marka aad cibaadaysanayso ha u cibaadaysanin inaad adigu wax ku hesho abubakar buu ilaahay ammaanay wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtigaaa wajhi rabbihi laclaa ilaahay wejigiisa iyo raali noqoshiisu doonaya cibaadadu waa tanbiihun daa'imu lilinsaan oo midhaha aynu ka qaadanayno cibaadada macnaha aynu waxyaaba aynu cibaadada ka faa'iidaysanayno waa baraarujin oo qofka bani aadamkii haddii aanu cibaadaysanaynin waa gaafil cibaado walood u dhaqaaqdaaba way ku baraarujinaysa kulli baad madaxa la galaysaa waad daboolmaysaa meelaad maraysa isgaran maysa haddaad cibaadada ka tagto waa tadkiir lilinsaan waaqim الصalaaةa lidikri walikulli ummati jacalnaa mansakan liyadkuruu sma allah aqim الصalaaةa lidikri wuu baraarugayaa qofku waa qof fatinahoo maskax furan oo soo jeeda oo xayaatadiisu saciidta cibaadada midhaheeda waxaa ka mida waynu ku xorownaa waa taxriiru lilinsaan oo waxuu ka xoroobayaa wixii uu ciddii kale u caabudi lahaaba hadduu ilaahay caabudi waayo waa hubaal inuu cid kale caabudayo wuxuu ka xoroobayaa fulaynimada iyo bakhaylnimada iyo didmada uu qofkii didsan yahay iyo dulliga iyo akhlaaq xumada ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban cafwan ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar
salaadu foolxumada iyo dembigay kuu diidaysa cibaadadu waa faa'iidooyinkeedu aad bay u badan yihiin kuwaasaa ka mid ah aynu u soo noqonno qur-aanka kariimka ah iyo taxadigiisa ama siduu had iyo jeer qofka bani aadamka ah ugu caddaynayana cidina la iman karayn gaaliyo islaam هناك مراحل للتحدي في القرآن قرآنكم مركا أو أضوامها كور جوكسنا أو عطينا يناني كيني كرينين مد استقى الله مده مرحلة مريا أما آياته سيابك للدوام بيدتك لو أتكينا يا لولي هاي بالقرآن كانوا كلا كينا سيابة دورة مري لهي وحاوت المامي إن hadday isu wada tagaan khalqigoo dhami jinkoodii iyo insigoodii iyo gaalkoodii iyo islaamkooda ama noocyadooda kala duwan inaanay qur'aankan oo kale keeni karaynin qul la in ijtamacat al-insu wal-jin ala an yatu bimithli hadha al-qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira jin iyo insi hadday isu tagaan oo iswada caawiyaan midka aftahana iyo mid falsafada yaqaana iyo mid walba isu yimaadaan oo xataa jinka qarsoonna kaashadaan lama iman karaan buu ilaahay quraanka marka waa isagoo isku dhamaystir mar kale wuxuu ilaahay tilmaamay haddii 114 ka suuradood ay kari waayeen bal inay 10 isku dayaan soo aayadaasina ma jirto qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat bal 10 suuradood oo idinku soo nabnabteen oo isku soo hagaajisteen oo quraankan oo kala akeena وايه تاسنا way suuroobi weyd tan imika imanaysa halkana maxaynu haynaa fa'tu bi suratin min mithli suurad kaliya kaana suuradeeba quraanka u yar inna a'dayn bal inna a'dayn oo kale isku day kuwii hadiya jeer nabinimada sheegan jiray usaylimatul kadhab iyo qaar badan oo nabinimo sheegtay qaar baa isku dayay oo yiri bal waxaanu sameeynaynaa quraan de qisadooda wada akhriin doonta iyo kii la joogay ka warinaya saaxiibkii habaayay wariyaa wartan inaga socon mayso warnacnacdaadaas waa nacnacdaada iyo dhaqlayntaas inaga socon mayso wallahi inaanu ka aad samaystay kii maxamed la mid ahayn inaga daa inaan ku fashilmin المهم وأرن عجيبة إلى يومنا هذا عتاسوها شيء مجرد وأرن وين وعطينا إياه وحيقنوا إلهي حق سكيم سبحانه وتعالى هذه مراحل كالتحدي وكاية وهناك أنواع للإعجاز معجز لماذا القرآن ينو يمد عجيبة وحلم إذا تشري نوعية لا هذا فربنا ده فن النباتر أو لا هذا فن الإعجاز وكتب لقى اللي فالرئيسية بيصبا نوعية الإعجاز كواحد كم إذا معجز لماذا القرآن الإعجاز البياني والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي والإعجاز الغيبي إن عمرك كأكتب بيانك هي بلاغة القرآن يصير وحوع عضينا ذاتك هذه يشير لغة عربية يقانا ويسلمين ويسلمين وحيد هذا عد كاني كرتا مجفتها هذين عاون الإسلام محاضرات استنانا كقلنا الإعجاز البياني والله يا والله مرة ما انكروا على ركي الشيخ باوح في السرية وإن يركبا نبي نوح بإلهي وكور ما وحوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما نبي نوح قلدي سي وحو دخ جوغي كن سنه او كنتن لا ايو دخ جوغي marka waxay leeyihiin erayga sana meesha uu dhacay caam ma gali karo halka caam uu dhacayna sana ma gali karto oo erayga sana waxa loo isticmaalaa bay yiraahdeen in tiradan bisha shamsiga ah ayaa loo isticmaalaa qoraxda sana waxa kale lagu tilmaamaa abaaraha labaduba wax macruuf ah weey caamna waxa loo isticmaalaa sanadkan dayax in lagu tiriyo waxa kale loo isticmaalaa maxay barwaaqada markaad u sii dhabagasho nabigani muddo dheerna uu dhex joogay muddo kululna uu dhex joogay weey ila qamariga iyo yamaa dheer shamsiga qamariga waxa dheer shamsiga fara badan
marka sanado fara badan oo sidii abaarta u kululaabu dhex joogo intuu ka maqnaana waxa ahayd sanado kooban oo kuwa qamariga la mid ah barwaaqana ah labada erey isma bedeli karaan waa tusaale icjaaska cilmiga ahina maanta cilmigan tajriibiga ah ee gaariga islaamka dadku ay diraaseeyeen ay baareen xaqaa'iq cilmiya baa jira oo quraanku hore uga sii waramay oo maanta cid firi karta aanay jirin oo gaaladu markay ogaadaan inuu quraanku ka waramayo waxaan ay gaadheen tijaabada ay qaarkoodna ku islaamaan qaarkoodna yaabaan oo isdiibaan qaarkoodna markay ogaadaan qariyaanba waxa kamid ah cilmi xaqaa'iq la xidhiidha cilmi al-ajinna cilmiga hadiyo jeer ilmaha marka uu caloosha ku jiray quraanku sidoo uga waramayo tijaabadan casrigiina sida uu waafaqday ijaaskii tashriiciga haba isaguna la mid oo xagga sharci dejinta sharci la dejiyo adoomo loogu tala galo oo hago oo saxa oo dantooda ah oo kan la mid lama soo heli karayo wax macruuf weeye taasina laakiin waxa calaf ku aya cida weydaaratay taasi saluugta الإعجاز الغيبي باجرة وقيبها إعجازك القرآن كان كريم كأيو كمدي هاي قرآن كوحو كورهم وح مقن وصيدو أشياء جايبو ورموبي والله أرك تحسين هاد بيو بدنت ومدول إن شاء الله مركين هالكيس مرينو أيين حسي دورنا وحيابا مقن وأما قلوب تدتك كم مقن أما أن ولد عمبا أيو قرآن كسي ورمي سيدو دي بان الله أرك وكي النبي قولها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق شرط كلقل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين شرط لقل بولي سيدا إلى هاي وشجاع قرآن كعدي إن من كان روما كأمر هير روم أي كجوا ليسن دونا إن من كان هير إيران سيدي مددي مركب هلا صار عفوا وشرط كلا ديكتي مددي اللي بعد بيكون هرجش رواية صحيحة سيدي الباميس فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار هدي انتو اسكو دايدين هدا سبين كري ويدين دبنا وسمين ميسا لن تو أبدية ولن تفعلوا وانا جملة معترضة جوابت شرطك هرنا وحويان فاتقوا النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فإن لم تفعلوا هذا إذا سمين القرآن سمين تأسيدين سروبي ويدو ولن تفعلوا سمين كريم ميسان مستقبل كأوحيد إلا قد بني وحوي فاتقوا النار والنار مسكيل عليه السيدة وكل نار بدنا يسانه يدين كو قنعاء أركي قرآن كوحلا مدينة نيتشرين إنا هدنا كسي ديرتان حمانتان ديب كذا إلا هذا النار عبصدا التي وقودها الناس والحجارة naartiina ilaahay uu ka waramay waxa lagu horinayaa xaabada wahay waa dad iyo dhagaxaan talo dhagax maxaa loo doorto laba dhagaxba uu noqonayaa dhagaxaantani de kulaylkay ka qaybihi bal adigu dhagax kululaaday u dhawow uu ku diiranba dhagax imika kululoo sidaa u kala haddaad biyo ku shubto daasha sawnada la ilaa Soomaaliya sawnada waxa weey marka qofka la kululeynayo dhagaxaan kululba halkan la dhigaa agtoodana qofka waa la fariisinayaa ninkii galay uu arkay dhagaxaas ma biyo lagu shubaya oomiga ka soo baxa ayaa dhididka ka dhameynaya kulaylkaas uu leeyahay de qalalkana waxa ugu wacanba biyo yaraanta inkastoo qolada chemistry ay dhaan dhagaxa laftiisa de biyo waa ku sii jiraan haba yaraadeen haddana biyihii soo yar daraadeed baa ugu wacan inuu kulaylka qayb noqdo dhagaxa waxa kaloo kamid ah dhagaxaantii adduunka ay caabudi jireen iimaan lawayaashu bagwaanadoodi sanamyaasha casriga hindidu ay caabuday ilaadan bagwaan marka dhagaxaantii noocaha ilaahiyaasha u yaqaaneen baa la soo ururinayaayo si dulligu ay isula duloobaan baa naarta lagu wada ururinaya caabidkii iyo macbuudkii kii wax caabudayay wuxuu caabudayay halkaas uu ilaahay ku ururinaya subxaanahu wa tacaala marka sida cajiibka ah quraanka kariimka ahi ودadka wax ugu iftiiminaya oo ugu bayaaminaya ijaazul bari' baa la yiraahdaa qolada bayaanku ay u yaqaanaan fataqu naar waxay intaas macnaha u taagan tahay wax farabadan faadaas waxay u taagan tahay hadii aad aragteen quraanka inuu xaq yahay hadii aad kari weydeen mid la mid ah inaad timaadaan ina la timaadaan haddaba soo islaam oo ilaahay ka cabsada naartana ka cabsada waxa soo dhan baa
ayaa intaasaa lasoo ururiyo lasoo koobo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam